bari meelaynu joognaba in badan baynu baahi u qabnay in aynu inagu helno dawlad iyo maamul aynu isugu talinno oo isku maamullayn haddii maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanteenna uu soo geliyey waxa waajib inagu ah inaynu allana ku mahadino kuna fara adayno oo ilaashannaayo dadaal dheer oo ay reer waqooyi bari u soo mareen inay maanta halkan soo gaadhaan oo ay u soo bixiyeen naf iyo maal una badheedheen burbur iyo barakac iyo dhimashiyo dhaawac baa halkan aynu soo gaadhnay ka dabadow wixii ina soo maray inaynu wax ku qaadannaa wanaagsana inaynu ku cilqabno oo keliya maaha inaynu wax ku qaadanno oo shalay meeshaynu joognay iyo wixii meesha asbaabihii ina gaadhsiiyey aynu horteenna soo dhigno oo intaynu daraasayno aynu ka digtoonaanno ka taxadarno in mar kale asbaabtii iyo waddooyinkii aynaan marin inaynu gebi ahaanba la nimaadno qorshe iyo waddo cad oo ka duwan tii markii hore ina dhaxal siisay halkii aynu gaadhnay iyo dhibaatadii layna markiyey inaynu maanka ku hayno inaynu nahay dad Soomaaliyeed oo u qalma ama geeya inay halkan soo gaadhaan oo ismaamulaan iyagu oo aynaan u muuqan dad waxa ay heleen aan haysan karayn ama aan hanan karayn xaasha halka aynu joogno iyo meel ka wanaagsanba waa u qalannaa waana geynaa habdhaqankeedii haddii layna ka helo habdhaqanka dawladnimadu inooga baahan tahayna waxaa ugu horreeya ugu mudan midnimada iyo wadajirka iyo sarraynta sharciga haddii midnimo iyo wadajir la waayo dawladnimada tan waa la waayaya haddii sharcigu sarrayn waayona dawladnimadan waa la waayaya ugu horrayn midnimadana aynu daabka hayno oo ilaashanno sharciga iyo sarrayntiisana aynu wax walba ka horraysiinno amnigu sharcigu inuu sarreeyo u baahan yahay kala dambayntu sarrayn sharci bay u baahanta bulshadu gebigeeda oo meel kastoo loo dhaqaaqo sarrayn sharci bay u baahanta qodobkaas sarraynta sharciga ah iyo midnimada iyo wadajirkeenna oo la ilaaliyo baa dawladnimadeenna asal u noqonaya waxaynu ka soo baxnay marxalad ismaamulku meelgaadh aynu ku jirnay oo 2 sannadood qaatay labadaas sannadood